dawlad deegaaneedka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay la gaadhay heshiis hubka Dhigisa Jabhada Onlf taasoo la arkayay heshiiska ugu weynaa ee dhexmara labada dhinac sidoo kale Jabhada ayaa ogolaatay inay kala shaqeyn doonto dawladda sidoo loo dhameyn lahaa saboolnimada ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo waliba qodobo kale Jabhada Onlf ayaa ah guud ahaan Jabhada ugu balaaran guud ahaan marka la eego mucaaradka dalka Itoobiya oo muddo dheer dagaal kula jirtay dawladihii kala duwanaa ee isaga kala dambeeyay talada guud ahaan dalka Itoobiya waa sababta keentay in dawladda Itoobiya uu aqoonsato Onlf inuu yahay mid kamid ah ururada argagixisada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ka qaaday xayiraadii saarnayd isagoo sheegay Onlf in aysan ahayn urur argagixiso taasoo bilow u noqotay wada hadallada labada dhinac wixii intaasi ka dambeeyay waxa bilowday wax loo arkayay isbedel siyaasadeed waxaana jigjiga ku laabtay saraakiil iyo ciidamo badan oo Onlf ka tirsan ugu dambeyntina waxa saraakiisha u sarreysa Onlf iyo madaxda dawlad deegaanku ku heshiiyeen in ciidamada Onlf laga dhigo hubka deetana lagu xareeyo xerooyin si loo tababaro intooda danaynaya Idris Maxamed Axmed telefishinka caalamiga Eryal